wabarakaatuhu dhammaantiin aad baan idin salaamaya waxaana leeyahay soo noqod waxaanoo wanaagsan waxaa kusoo dhawaataan youtube-kayga Jubayaro Official kulligiin I hope mar walba waan dhahaa waxaan idin rajeynayaa mar walba inaad caafimaad qabtaan intii dhimatana waxaan leeyahay Allah u naxariisto intii noolna waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay cimriga u dheereeyo intii dhashayna waxaan leenahay dhalasho wacan wanaagsan intii xanuunsan waxaan leeyahay xanuunka ka qaad intii waxba aan haysan Ilaahu wax sii intii waxaystana waxaan leeyahay Ilaahay u kordhi oo maaragtay adiga deeqdaada iga haya adiga qof raxiim ah qof walba wuxuu u jecel yahay inuu Ilaahay maaragtay inuu Ilaahay siiyo adduunyadani waa laba maalmood waa laba beri waaye waan laga tagayaa dadna waa imaanayaan dadna waa sii joogaan dadna waa ka tagayaan marka Ilaahay maaragtay qaatimadaha nagu dhameeyo naga caafimaad qabna qofna aan dhibaato noo qabin qofna aan maaragtay cuqdad noo qabin oo halkan nooga bukin aan Ilaahay ka rajeynayna ma taqaanaa أنا وحن تاجنها مر والبوحن تاجن هاي قف ولبا ووح إيقبه هي عفيو قف والبوح إيقبه هي عفيو عاونا دمنا لغيابه عشينا نقارب مغرب كل قارب صبح كل قارب ظهر كل قارب مغرب كل قارب الله قفور رحيمة استجا يا قرنيا هل كان واحد ما أنت عم تصفرست وحوي شيكو قولي أمك شيء شيكو حكوا حقي شيكة حرير يا شيلن بدش شيلنتي جيري وكونا جيدش شمبري الكاسي عيا إنه بعد معها waxa aan in hayaa oo waxaan rabaa sheeko aniga iyo maaragtay nin oo ka imaaday wadamadan Asia oo u dhashay wadankan la yiraahdo South Korea ninkan waa nin muslim waaye jimka aan tago ayuu maaragtay sheekadan muddo waxaan hayay 3 sano meel 4 sano meel ina hay 3 sano ina hay oo aan dad laakiin aan u sheegay way jiraan oo mar walba aan la wadaago way jiraan oo sheekadan aan u sheego marka waxa waaye marka ninka South Korea ka imaaday waa oday waaye laakiin hadda aragto wuxuu eegyahay laakiin 30 iyo 40 inuu meelaha soo jiro macallina ma sha Allah kullu qof muslim waaye haduu sagaal gaal xataa yaanu xayraada Ilaahay maaragtay gaalka muslimka waxa waaye Ilaahay maaragtay we have hal Ilaahay sana laakiin anagana maaragtay dad muslim waxaan nahay kana fiican maaragtay gaalada marka I'm happy to be Muslim hado faraxsanahay maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo maaragtay sameel leh amal maaragtay muslimadu uu ka celinaysa okay Soomaali waxay tiraahdaa muhiim ma aha macnaha waxa halkii ma aha yani qurban joognaa wadankeena ma aha maxaan ku dhahaa ii sheeg qof walba maaragtay wuxuu la kulmayaa wax oo maaragtay uu la yaabo jimka aniga aan tago ayaa maxaa dhacay ninka oo Chinese-ka ah Asia ka imaaday yes walaal ka Chinese way South Korean marka dhowr jeer wuxuu arkay meesha laakarka dharka lagu bedelo ayuu wuxuu arkay caruur Soomaaliyeed oo la socdaan aabooyinkooda la socdaan oo maaragtay ku hadlayaan luqadda maaragtay English ku hadlayaan marka wuu yaabay anigana waan arkay dhowr jeer odagaan cunug oo watana waxa waaye waa cunug oo ii sheeg oo u yahay halkaan ku dhashay marka maxaa dhacay dhowr jeer marka uu arkay ayuu wuxuu dhahay maalmaha kamid ah ani xataa waa arkay so ninkaas hadaan ka dhowr jeer waan arkay hadda waayada ninkaas ma arko oo jimka caruurta ma keeno ma aqaan maybe coronavirus ka maaragtay oo dartiis uu baqaa laga yaabaa eerka Soomaaliga ah odaga Soomaaliyeed marka meesha jacuzzi-ga biyaha kulul ayaan ka fadhiyay marka isaga cunuga uu ah ninkiiba email marka wuxuu yiri assalaamu calaykum kasaqul calaykum salaam waxaan ku dhahay yes marka wuxuu yiri oh I know inaad tahay Ethiopia oo Soomaaliya markaasaan ku dhahay Ethiopia Soomaaliya isku mid waan ku dhahay we from East Africa ka imaanay you know ani ahaanta Ethiopia Hawaii
I don't mind but marka waxa weeye yeesaan ku dhaaniga ito waxaan Soomaaliya oo markaas okay hawda muslim oo dhahay marka waxaan rabaa inaan sheekayro kula wadaago aan ku yiri waa yahay ninku ii tilmaamay ninku waa yar gartay ha okay macnaha wuxuu yiri idinka taas Soomaalitiin buu dhahay you guys have luqad kale ku hadashaan in gooni ma jirtaa markaas aan ku yiri of course markaas luqadina waa maxay markaas aan ku yiri Soomaali okay dhawaaq bal ii sheeg buu dhahay dhawaaqisi dhawaaq yani maxaa lagu yiraahdaa kaale iyo waa ku salaam ka waran iyo xagga u socotay wixii aan u sheegay wuxuu igu yiri waaw kulaha luqadina waa adag dhahay ثم qofku ajaaribka mataqaan luqad Soomaali ku dhawaaqay waxa way ka duwan tahay maaragtay inuu soo runta ku dhawaaqo ereyga Soomaaliga ah siba anaga Soomaalida markaan luqadda Ingiriis ku hadlayno iyo Carabiga aan ku hadlayno iyo luqadaha qalaad aan ku hadlayno si sax aan ugu hadalnaa carabkeena mataqaana waa maaragtay wallaasiin way fiican ereyga u dhahnaa marka wadamada Hindi iyo indhayarta iyo waxa waa la dareemayaan qofka inuu yahay qof maaragtay Hindiya ama yes uu yahay ama Ethiopian yahay ama African yahay laakiin anaga Soomaaliyeena ama Carabta tabal dareema you know Soomaaliyeena ka afsuuqa Ingiriiska waxa luqad kasta maaragtay very easy not tahay yani dialect dhawaaqa si fiican u dhaxayna bam ya qofku waxa leeyahay wow inta ku dhalataa warnaya no marka wuxuu igu yiri wuxuu dhahay waxaan arku dhahay cunuga odaga oo wato dhahay carruurtu wato af Ingiriisi ku hadlaan oo yani wax walba carruurta u baahan yihiin waa la fahmayaa wuxuu yiri cunugaygan awowaan uu dhahay halkan ku dhashay 8 jir waaye kuwa ku aabihiis baalka ku dhashay yiri markay ani ila joogaan buu dhahay luqadda wuxuu ku hadlaan yiri South Korea ku hadlaan dhahay marka ay iskuulka ay ku maqan yihiin ay joogaan wuxuu ku hadlaan English ku hadlaan guriga markay yimaadaan uu yiri waxay wala sheekaystaan buu yiri luqadda wadankeena ah marka wuxuu taagan yahay luqadda waa in qof dadka wuxuu yiri cadaankii madowga waxay leeyihiin English ay haystaan luqad kale ma haystaan oo qofka ma taqaan ay ku hadlaan ama ay qof ku xantaan ama ay ku sheekeeyaan marka wuxuu taagan yahay ku yani ku dhiirigeli buu ku leeyahay dhalinyarta oo meeshiina joogaan inaa ma taqaana ay tan af Ingiriiska aysan ku hadlaan af Soomaali ku hadlaan laakiin kala jooga dad abo yes abo waxaad isii laakiin abdo luqad af Ingiriis ku dhahay abo hungry baan amsaana ay qof walba maqlaya wada waxa lagu cunuga inaa biisna ku haysta lagu meeshan waxa wadan qalaadan joognaa marka waxaan ka codsanayaa anigana aabaan ahay aabooyinka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan ka codsanayaa oo aan sheegay oo aan leeyahay dhigiina indhihiina deemiya carruurtiina luqadda af Soomaali kula hadla wax walba oo waxa bartaan ninkaas mataqaana South Koreanka wixii cunuga ka la sheekaystay waa dhageysanay isaga awoogiis wallahi oo bilaa been ma sheegay yani sidoo wuxuu ugu hadlayaa yani si sax ugu sheekaysanaya caadi dee uu yahay wuxuu ku leeyahay cunugan ana dhalo ku wiilkayga dhalo ku leeyahay waxaan rabaa inay fahmo laakiin mar rabina adiga fahamtid waxa ku hadlayno inuu luqad Ingiriisi ugu yimaado mar rabin luqad Ingiriisi waa wana kula hadlayba si fiican Ingiriiska cunugu u yaqaanaa qatar waa marka waxa waaye wallahi hoosta uurkan waxaan ka dareemay caloosha waxaan ka dareemay maaragtay yani waxaan dareemay maaragtay in dhibaato inay dadka Soomaaliyeed ka haysato ilaahay dhibka naga saaro wadan qurux badan aan qabnaa dawlad waa haysanaa dad waa haysanaa wax yar la naga dhiman wax yar ka yar ilaahay maaragtay anaga dul qaado wadamada qurbahan aan joogno ayaga hata dhibaato way soo arkeen problemaad way soo arkeen waqti waxay soo gaareen maaragtay ayagana oo wadankooda mataqaan u dhismo oo kala arag ah marka insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay maaragtay in wadankeena intee noo dhamaystir 30 sano waan daalnay 30 years baan ku jirnay qurbo dhibaato haddana qarax dad masaakiin la qarxinayo dadka soo dhalinyarta oo qurbaha joogayna mataqaana ay ku sii dhumayaan oo maaragtay halkaasna dhibaato kale ka sii dhalanayso ilaahay baa qofur raxiim asaga maaragtay waxa leenahay ilaahayo maaragtay waan daalnay oo maaragtay xiligi waxaan taaganahay oo wadankeena inuu maaragtay aan cadaalad inaan helno madaxweyne kasta oo la keeno waxaan ka codsanayaa inaan mataqaana soo dhaweysaan marxabaysaan oo madaxweyne balacaayin ra'iisul wasaare lacaayin qofran hadda waa arta Mareykanka aan joogno ama Yurub ay joogto ama Carabaha ay joogto ama Kenya ama South Africa ay joogto madaxweyne kasta oo la doorto ma caayaan
adigana youtube soo fadhiisanaysaa waad caaytamaysaa waad qaylinaysaa waxbaa kicinaysaa balaayaa samaynaysaa why because أنا مدحون أبو سومالي قبصدا وأي سومالي وحنجي على أنا كل حيث ودن كي أو لامي قليل أو ما عرفتي جدك أن كل حيث أو أن باور كل حوضنا أي أو إلا أي رات أمبو محارة كان بونس عتير مالها إيديك صح يعني وأن كتيكرو يعني سومالي كجيس يعني أنت عودة سومالي أنا لا كل حيث نكرو أو ما عرفت كار أنا كانوا باور كي وتو باور كور يفري هاي أو ما عرفتي هودا وراح يسرع ودن كيجا يا أخي واحد محنو ديري يا برف كان إرفات كان وراح جونا ورفات واي يا ودن كيجا كشقة سننا وحول بعضي ديب كدور لما عضو الله شقة سنة يا مركا إن شيء كذا إن قدي أودي مركا والله بالله طلع عن نيدك ونيد وحنا وهي وحيري بالفير ده كان دولة دي طبعا باسبوري ليهين وحول بيهستا إلهي كسكو يعني انت هالكان وطن كان اي ويقول لك فيس افرت لحد تلان جوغا ويري سنه والبحير waxay aada wadankayga cunugan hadda waan ka xeenaya yiri sanad kaar markuu dhamaan rabo baan waxaan geenayaa yiri wadankaas aan geenayaa marka yes marka waxaan leeyahay inaan luqadiina af Soomaaliga ku hadashiin ciyaalada gym ka tagayo marka basketball ka dheeleysaan marka idinka isku iimaanaysiin luqada qalada ku hadlaysan joojiya dadka aan mataqaanaysan in fahmin af Soomaaliga waxa waa luqad fiican ay shaqada balfiiri geed ubax ya kawar qofku agtaa dhigi karta cadaanka dhagaxa falfiiri dhigi karta muxuu ka fahmaa geedkan fiiri waa dhagaxan cadaanka iska dhaxal waa dhigi karta laakiin lagu ma dhihin bilaadanka caay ina bilaadanka caaysan waa laga fiicay dad caayinku ma dhahooyo laakiin macnaha waxaan ka wadaa adiga oo maaragtay luqad fiican ay feeshid ina luqad kale maaragtay aad ku caararto waa laga fiican yahay marka sheekadu markuu waxay ahayd ana dhaxmartay ninka soo tuuriyaanka odagaas waa yeelka muslimka ah ayaa wuxuu igu yiri iguna waaniyay iguna taliyay community-giina wuxuu dhahay maaragtay una sheega in maaragtay luqadiina caruurtiina ku hadlaan luqadda Soomaaliga waa very important waaye oo ka arag caadi maaha hadda waa kana Soomaali ana Soomaali kuma soo korin laakiin Soomaali qasab ku bartay khor guriga hooyo Soomaaliyan jooga hooyaday Soomaali abe Soomaali walaalay way joogan of course waa baranaysaa ma sax Soomaali yeelanaysaa waa baranaysaa laakiin hadaan ka waran af Soomaaliga ma gano aniga ma ganeen ama la soo fariisto maxaa ay markaa waa hindi maane may Soomaali sheeganta aniga ma aqaan aniga sida bay kan noqotay aniga dana hooyada bay ma joogto ha why horta adiga isweydii intee joogtaa waxaad isweydiisaa gani markaa dhehaysid iyo gungunoo dhehaysid halkeeba kusoo kortay guri hooyo Soomaali sama guri aabbo Soomaali joogo sama meesha kusoo kortay صح ولا بين of course waxa kusoo kortay waa guri Soomaaliyeed gunu hata ku hadlayso ma caadi u hadashid luqadda kala laga rabo inaad gunu ugu hadashid صح ما قلدنا قريقة لغة إنجليزكا أما لغة عربية أما لغة كينياتيكا أما لغة سود أفريقيا أما لغة ما أعرف تشاينيزكا أي واحد غيره أنا جون أو هذا شو هذا أنا إني كو أهاتواي on top كور إني كو أهاتواي لغة سومالية أنت هذا أنا توك كلاتي أنا كور مرتواي ما هي أنا لغة سومالية هوس أجيز سومالية كفرتو جنو ولا تبرت تمام أنا ما جني أنا كتب يا عيب عليك Somali هاتاي you are Somali أدوك وحكاف في عن مجرو you are the best بعتاي قطر هاتاي قطر توب إركز تمرو Somali هاتاي مقعق Somali هاي مرك واي سكولي لسا مرك واي قنو قهرلي لغة Somali كو راحيسو كو قصر كو فرح ولا لغة دادوا أنا هذا أقول حماية مركا أركو جنو وحكوا هاللايا والله هذا أنفيريا شيكة وزير صعونيسا فيديو كحيل وحربنا كشيكية ضد أنا رمك عودنا شيء مرة والكان أنا شيء مرة لكن أنا أركي صدق سنة ودك الجوجا لغة إنجليزي كحلوها هاللايا مع بلا سيكا رجايا أنا والله بلا سوماليا وإرجعت مكرنا هذا بادية لقى كيني والله بلا طلع دويدا وحكت وحكاية بيو أركي ساعة وحكاية بيو بحالي وحكاية بيو أركي نندو جوجو يا جيت على وقت صالير مركا
video waxaan ka sheekan doonaa sheekatan insha Allah marka waxaan leeyahay meel walba joogtaan ilaahay maaragtay caafimaad ha insiiyo mar laba saddexaadba marka waxaan leeyahay sida iyo nabadgelyo like and subscribe to my YouTube channel marka waxaan leeyahay sida iyo nabadgelyo waa inoo iyo video xiga bye